الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاد بردين السلام يا دمان خيارتها يهل شرفك السماريد مركز تشوكتان وغرينك يا مركالة يقرها لي هذا وهرقب سنة هاي ما هين إنان عاو هذا لكن وان كفر سنواي وقتها أسكريا waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo dhowr eray insha Allah taala. qodobka koowaad waxaan ka oran doonaa maadaama xilli kala guur la gelayo inaan wax ka tilmaamo labadii sano guulihii la xaqiijiyay oo la rabo in meel lagu qorto aan la ilaawin si cidda imanaysa continue ay uga sii dhigto halkeed uga sii wado. qodobka labaad baarlamaan baa la xulayaa doorasho dhacaysa yaa la xulayaa oo mudan in la xulo. qodobka saddexaad xasaradaha darisyadu ay wadaan khaasatan nimankii la oran jiray aanu bixiyay kuwa aan hanka qaranna lahayn hanka qabiilna lahayn oo ay maanta ugu dambeysay inay conflict ka abuuraan meel la yiraahdo isheeg magaaladii ku taallay xalin bisheeda magaceedu uu gooyay shaxda. qodobka afraadna waxaan wax ka oran doonaa nin la oran jiray Doore oo hogaamiyihii Maakhar State ahaa oo tareenkii isagoo darawalka ka ahaa ka booday. Maaqansa ay maqlaysaan codkaygu uu hooseeya inta kama hormarin karo marka haddaad maqlaysaan ha ay soo qor insha Allah. inaad maqlaysa marajinaya waad la daahdeen haddaad maqla weydaan idinka ay sheegi doonaa. intaanan afartaa qodob u gudbin waxaan rabaa inaan kelmad muqaddamo ah dhahdo. oo mashaariicda way iman doonaa mahadsantahay khadarow. mashaariicda la sheegay waa iman doonaa. waxaan rabaa inaan ku bilaabo kelmad guud. asaad ka war haysaan waxaa jiray waxaan soo dhaafnay 18 May 18 soo dhaafnay hadda marka dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ba ama baraha bulshada ama magaalooyinka qayb kamid ah maalinta uga dabaaldegay. waxaan rabaa inaan idin sheego dhalinyarada Soomaaliyeed oo deeda soddoniyada ku jirta ama dhowr iyo soddon ka dheh waxa wacyi ama leh wacyigoodu waa zero. maxaa yeelay ma soo gaadhin dowlad Soomaaliyeed oo wuxuu sheegta oo rabaysa mana aanay helin manaahij waxbarasho oo midnimada iyo muqaddasaadka iyo calanka iyo waxa ay Soomaalinimadu tahay iyo dal jacaylka ma garanayaan muhiimadda calanka iyo ciid midna u leeyahay. sadarteed ma garanayaan waxa ay u dabaaldegayaan mana fahansana ujeedada maradan daligaha la ka dambaysa iyo 18 May waxa ay tahay ma garanayaan loogama sheekayn. waxaan rabaa inaan ku celiyo inay xaraan tahay sharcan wa aqlan inay tahay in marada qof Soomaali ah oo caadi ah oo miyirkiisa qaba reer Sheekh Isxaaq baha ahaade inuu qaata waa gaf. maxaa yeelay arigu nimankan min nabici ودad baa waxay soo qaraan caadifi baa tahay wad xanuunsanaysaa isaga baad nacabtay warshakadu saas maaha. nimankan waa dadka aan isugu badino waa dadka anigu aan qaraabada ugu badan ku leeyahay laakiin anigu waxaan dagaal kula jiraa reer ma aha. waxaan dagaal kula jiraa waa mabaadi faasid ah oo xaq jirnimo ah. mid walba ogaada ama haweede ama daaroode ama isaaqade ama raxanweynde ama jareerde fulaan cidda rabta sheego oo Soomaaliya qabilka rabta sheeg waa feeg wax cadeyn looma hayo. kaliya waxa cadeyn loo hayaa waa Soomaali inaad tahay. waxaad ku dhaaran kartaa inaad Soomaali tahay. waxa aad dadka wax isugu tihiin waa Soomaalinimada. dalka waxaynu ku wada leenahay waa Soomaalinimada. waxaynu isku caawinaa waa Soomaalinimada. muslimiintu way tiro badan yihiin dad badan baa islaam ah laakiin Soomaalinimadu waa waxa aynu wax isugu nahay oo dhulka iyo ciid iyo calanka aynu ku wada leenahay.
anigu marka haddaan reer nabcaado cidhibtaydu naar weeye reer ilaahay abuurtay oo meel degan oo muslima oo soomaaliya in la nabcaadaa wax iisiya ma aha ilaahay baan intaan ka magan gelayaa laakiin waxaan anigu necebahay waa nimankan mabaadidooda iyo waxa faasidka ah u qoran axmed yuusuf yaasiin oo madaxweyne ku-xigeenkii daahir rayaala ah baa wuxuu sharaxay calankooda balse anu dhegaysta wuxuu yidhi casaanku waa dhiiggii aynu daadinay dhiig ayaa laga daadiyey dhiigga cidda laga daadiyey waa soomaali hamxaarna ma aanay dilin ingiriisna ma aanay dilin gaal kalena ma dilin ogaada casaanka wuxuu yidhi waa dhiiggii aynu daadinay caddaankana wuxuu yidhi waa nabaddii cagaarkana wuxuu yidhi waa barwaaqadii xidigta madow oo ku dhex taalla wuxuu yidhi waa xidigtii shanta gees ee soomaaliya oo dhimatay buu yidhi dadka marka soomaalida ah ee dhallinyarada ahi ma garanayaan waxa ay ku dabaaldegayaan oo ku damaashaadayaan oo ku heesayaan waa xabaashoodii noloshaa soomaali nimankani ku aaseen noloshay ku aaseen soomaali saa darteed waxaan arkayay wiil yar oo maraykanka jooga oo layidhi sanadku wuxuu ku jiraa councilka minneapolis buu ku jiraa oo malaha reer puntland ah oo apologies bixinaya wiilkaasi markaad eegtid shucuurtiisa ma garanayo wixii uu ka qayb galay waxay ahayd mana garanayo waxaanuu apologies ka bixinaya waxa uu yahay kuwa gudaha joogana waa la mid kuwa u badheedhay arrintaas oo ay ugu horeeyaan kuwa aan hanka qaranna lahayn hanka qabiilna lahaynna cidna wax ku yeeli maayaan marka wacyiga soomaalida wuu leetaa very good example kale waxa idin ah gobolka la yidhahdo SAC magaalada la yidhahdo Lascaanood waxaa la geliyay dispute area nimanka garoowa fadhiya ee haddana mashaariic baan haynaa way ku faraxsanaayeen inay meeshaas dispute tahay way ku faraxsanaayeen dadkeeda habeen kasta qofka ugu qiimaha badan in la qasho wayna ku faraxsanaayeen SNM ay ka taliso wayna ku faraxsanaayeen iyaga garoowa baada in looga qaado Gaylan media page-kiisay ku jirtaa inay dhaqaale ku bixiyeen inaan SNM boo ama gaadhin oo laga qaleeyo waxay ku jirtaa Gaylan media page-kiisa saa darteed waxaa yimi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in xabad looga saaro dispute-kii si kinwana siyaasad ahaan ra'iisul wasaaruhu uu ka saaro oo Soomaaliya dawladeeda ay timaado waxay ahayd sharaf qof kasta oo damiir leh oo Soomaaliya uu u dabaaldego iska daa Soomaalida kale iyo siyaasiyiintii kuwa reer SSC ah oo maamulka u dhaartay iyo kuwa dhaqankii yiri xamar baan hoos tagna aba ka soo horjeeday bal ummadan wacyigeedu inuu zero yahay cid kastaba waxay ahayd inay u dabaaldegto maadaama xabadna lagu xaqiijiyay dispute-kii in laga saaray siyaasad ahaanna lagu xaqiijiyay oo ra'iisul wasaarihii oo xukuumaddiisii wata uu ka soo degay waxay ahayd in loo dabaaldego Lascaanood waxay ahayd meesha ummadda Soomaaliyeed laga raafiyay oo laga tarxiiliyay waxaa loogu talagalay qofka garoowa ka yimaada inuu fiiso ku soo galo iska daa meel ka shisheysee maantana waxaa imanaya oo ku qulqulaya qof kasta oo Soomaali ah waxay ahayd sharaf soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed biajmalaha ninka ka mudaharaadsan muxuu ra'iisul wasaaruhu u yimi iyo ninka siyaasiga ah ee istiil ka aamusan muxuu doonayaa ana idin sheegay waxa uu doonayo waa jaahil aan jaajuus ah oo aan midnimada iyo qarannimada iyo wadajirka midna sharaf ugu fadhiin qodobkaas waa wacyi marka reer khaatimo waxa rabaan ku dhaado u dulqaata dhalinyarada bilaa wacyiga ah oo aan haysan cid wuxu sheegta oo aan helin manaahij tarbawi hor rabaysa maanta waxaad arkayseen page-kayga ku jirta arday laga jarjaraya calaamada reeraha gabadh yar oo aan ku qiyaasay 4 sano jir baa waxay tiri macallin wacalankii Soomaaliya hayga jarin kan reer ma laha macallinkii baa ka jaraya 2016 baa waxaan tagay Soomaaliya anoo Afrika markaa ka imi waxaa la sheegay manhajkii waxbarashada ee Soomaaliya hay'adda leerda UNESCO buwaagta inay iibsato haddii leerda buug manhajkii Soomaaliya ee malhabla yaala intay iibsadaan inay gudub qabadsiiyaan libaada waa nimanka hadda reeraha u sameeya manaahijta Puntland manhaj Galmudug manhaj Hirshabeelle manhaj SSC manhaj Somaliland manhaj waa reasonka la rabo Soomaalida in loo kala dilo ilaa la waayo qof Soomaalinimada u damqata wuxuu ii sheegay niman saaxiibanahay
SSC haddaad tihiin maxaad soomaalinimada ku falaysaan soomaalinimada maxaad ku falaysaan maxaan sheegtaa anigu oo aan Soomaali ahayn dadka maxaan ugu yeedhaa oo aan Soomaali ahayn maxaynu wadaagnaa oo aan Soomaali ahayn maxaa inaga dhaxeeya oo aan soomaalinimada ahayn haddii taa la waayo waa sidii la doonayay maxaynu soo baxaynaa marka waxaan rabaa inaan wacyiga bulshadana wax laga qabto oo wacyigelinta hal la kordhiyo dadkana hal loo dulqaato wiilka Jamaal ee hadda apology-ka bixinaya Minneapolis oo qayrkiisna hal laga aqbalo apology-ka dadkana hal loo cudur daaro qodobka intaasan ka horanayaa qodobka ugu horeeya oo aan rabaa wax ka dhado reer SSC dhamaantiin bacda salaan maxaa guulaha la xaqiijiyay labadii sane ee hadda gabagabada ah ee ku meel gaarka aynu ku jirnay maxaa guulaha la xaqiijiyay guulaha la xaqiijiyay waxaa ka mid ah marka laga reebo inay sharafta iyo dhulkuba xor yihiin fagaarayaashii dunida lagu soo laabtay reerihii Soomaaliya la soo gaaray ardayda kaftame always anigu waxaan qareenka ula baxay inaan dhulka Soomaalida oo dhan ka hadlo hadda ka hor markii la sacnood la haystay waxaan xasuustaa waxaan ka hadli jiray kal hore hadda oo kale xilligii doorashooyinku taagnaayeen markii sida kubadda loogu cayaarayo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo masiirka ummadda especially Dani iyo Madoobe shirkii Samareeb wanasha khudbadii buqbuqo ee Garoowaan kelmad ka iri waxaan ka iri kelmad iyadana isheeg shiru juxa qabanayo laha confederal waa hadda ka hor kal hore weeyaan walaha waa go'ayna anaku marka waxa la isoo qori jiray maxaa ka khusayay Puntland orad xore niman waaweyn ba isoo qori jiray kamaan jawaabi jirin hadda laakiin hablihiiba waxay isoo qorayaan maxaa Puntland ka khuseeya waxaan rabaa inaan u sheego shanta Soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay inay fariintaydu gaari karto cidda anigu aan la hadlaana waa cidda aan isleeyahay waxba ku dhaantaa ciddii iyadu iga sarreysaya yaani idhigaysan cidda iga hooseyso aan fahmayna yaani idhigaysan laakiin dad badan oo ila ra'ayaa baa jira Garoowe iyo gaalkacayo aniga future-kayga iyo mustaqbalkayga iyo nabadayda iyo ehelkayga ayaa Allah waxa magaratada maanta ka bilaabay meesha la yiraahdo isheeg meesha magacaadkeed muxuu ahaa inay xuduud ka sameeyaan kuma fiirsanay waxbaan ka oran doonaa aanu soo laabto waxyaalaha la xaqiijiyay waxa ila la yaab badanaga qofba waxba wax ku qiimeeyaa dood maalin dhaweyto ka baxaysay Laascaanood oo uu daadihinayay Professor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waxay ahayd dood dhagaha Soomaalida ku cusub Maxamed Cabdi Xaashi waxa lagu tiriyaa ashxaasta ugu aqoonta badan Soomaalida laakiin Maxamed Cabdi Xaashi iyo qayrkiis ma aanay helin platform ay doodaha noocaas ku soo bandhigaan wax fursadana lama siin fursadda waxa la siin jiray geel jirayaasha iyo kuwa ariga ka soo leexday baa waxa laga dhig jiray xildhibaano iyo wasiiro in dadku ay doodaha noocaas keenaan ama dhageystaan ay ka qayb galaan wax weeye waa guulaha la xaqiijiyay oo ah dadkiisa inay heleen fagaarayaal ay doodahooda ku qabsadaan kuwa ay yihiin Soomaalida ay ugu sheegaan mustaqbalkoodan ay kaga tashadaan waxa kamid ah inay maanta yihiin dawlad goboleed wax la qaybsanaysa dawladda Soomaaliya kal hore waxaa jiray gabay Ilaahay ha u naxariistay ninkii loolan jiray Dhoodaan oo lahaa oo Soomaali galbeed kula hadlayay baan soo share gareeyay 2021 oo aan soo dhuloodo ka soo dhigay codka WhatsApp-ka markaas waxa gabaygaas waxa ku haboonaan lahayd maanta halka abwaanku u leeyahay Soomaalida galbeeday in laga dhigo Sooliya Sanaage yaani farqiga u dhaxeeya maanta iyo shalay nimankii isimada ahaa ee aan la aqoon meeshay jiraan oo aanay cid dhageysan jirin inay sida libaaxyada u socdaan maxaa kalifay waa guulaha labada sano la xaqiijiyay haddaan labada sano la isku sameeyay halka lama soo gaareen administrationka iyo dhismaha wasaaradaha iyo baarlamaanka iyo dastuurka iyo wax Ilaahay lagu mahadiyo oo loo baahan yahay in la ilaaliyo baa la xaqiijiyay labada sano ninka imanaya iyo baarlamaanka la keenayana waxa la rabaa in laga hubiyo inaanay bariis ka soo cunin xaraadirisyada
inaanay ahayn dadkii qadiyadan ka soo ganacsaday, inaanay ahayn kuwa baahiyo waddo. waa in baa garoonjeegooda la fiiriyaa 10 sano oo u dambeeyey meeshay soo harsadeen waxay meesha soo taageen. maxaa yeelay khatarta ugu weyn oo aynu wajahaynaa waxa weeye waa nin han yar, aqoontu doonaba ha sheegto, meeshuu doonana ha ka yimaado, oo ay easy u tahay inuu sharaftiisa ku iibsado shilimaan, iyo nin u kiraysan deesyada oo miskiin ahoo gacanta wax loo saari jiray oo aan aaminsanayn inuu istaagi karo. ninkan Firdhiye la yidhaaho ee madaxa weyn ama madaxweynaha adhe, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka arsaaqay caziima, go-aan, kalsooni, adaab, akhlaaq. waa ninka la yidhi 8 habeenba wuxuu u joogay dani garowe inuu kula kulmo. 8 habeen 8 habeen buu garowe u seexday inuu ninkaa arko, oo uu diiday inuu arko. Nairobi baa waxaa lagu yidhi baa la yidhi daniyow maxaa u diiday inaad la kulantid ninka la yidhahdo Firdhiye? ma istaahilo buu inaan la kulmo. haye ka dambeeyaan la kulmi doonaa. limaada? kumeel gaar weeyo waxa kama go-aan buu yidhi, lamana garanayso wuxuu wado. geelu ragaadka misku eriyey. caawana waxaa laga shoogsan yahay xamar buu u heesayaa, oo hargeysaa loo heesayaa. haddii xamar loo heeso miyaan ahayn dastuurka ku qoran in dowladda Soomaaliya la hoos tago? maalinta dastuurka la qorayay xasan miyaan madaxweynaha ahayn Soomaaliya? maxaa loo odhan waaya marka xasan ka tago baynu ii sheeg baynu xamar hoos tagaynaa? calaa ayati xaal waxaan rabaa isimada, siyaasiyiinta, cuqaasha, hablaha, jamaahiirta, isha in lagu hayo waxaa la xaqiijiyey sidii loo ilaalin lahaa. second one, yaa la xulayaa? dadka la xulaya waayo, baarlamaanka la xulaya waayo. waxay ila tahay fursad ma haysana maanta jamaahiirta loogu fasaxo codkooda inay dhiibtaan si ay masiirkooda iyo dhiigooda qiimuhu ugu kacay iyagu ugu keensadaan cidda ay doonayaan. odayaasha xulaya, odayaasha waxaan rabnaa inaan idhaahno, iyo cuqaasha iyo xaafadaha, reer walowba ninka aad keenaysid ka fiirso inuusan noqon nin u kiraysan darisyada. waddanka waxaa soconaysa lacagaan caadi ahayn, waa lays iibsanayaa. anigu ma xaqiijin karo, laakiin waxaa la yidhahdaa maalintii doorashadii Puntland la gelayay hore $12 milyan baa laasana dhex yaallay. caawana waabay ka badan tahay, jahawalba way ka imanaysaa. inangumeed aan nasabadda cad ku lahayn weeye garaadka iyo caaqilka iyo xildhibaanka lacag qaata ah. wuxuuna ka baxay waxaynu ku ballannay. marka lagu caddaatana maxkamad baa la saari doonaa degdeg ah. ballanteena waxay tahay war reer walowba ninkaad xildhibaanka u keenaysid 2 goor hubi, 3 goor hubi, inuu nasab yahay hubi, inuu gob yahay hubi, inuu islaam yahay hubi, inuu xalaal yahay hubi, inaanu xaaraan cunin hubi, inaanu kiraysnayn hubi, inaanu iibsanayn hubi, inaan la soo dirsan hubi. 1,000 wiil ee ciidda ku jira inuu garanayo hubi. qodobka 3aad baan tegayaa biidnillaahi kariim. reer SFC waxaan rabnaa idin sheego, xasarad baa socota. xasaradaas waxaa wada meel baa laga wada la yidhahdo TikTok iyo meel la yidhahdo Twitter Space, oo hadda anigu aan iyadana iskaga qaxay. dhowaan baan awalba galay markaan arkay meeshaas sida ilaahay loogaga fogaanayo, waa iskaga tegey. xasaradaas waxaa wada nimankii hanka qaranna aan lahayn, hanka qabiilna aan lahayn, iyo SNM baa iska kaashanaya. shaxda maanta waxaa la soo dhajiyey waa sool iyo waa qardho. niman saaxiibanahay khadar cawil yiraahdo wax soo qaray waray oog iyo caynababa waa soole. shaxda xitaa hadday sool tahay waxaa gacanta ku haya tolka ha loo yara kaadiyo. khadar waa runtiis, sool iyo caynababa waa la haystaa, waa sool waa run. laakiin waxaan rabaa khadarna weydiiyo, oog iyo caynababa waa sool laakiin weli waa la haystaa. laakiin shaxda iyo taleex iyo xalin iyo laascanadu markay SNM haystay 2 sano ka hor laguma qabsan jirin oo lama odhan jirin waa qardho. maxaa hadda ku soo aadiyey in la yidhahdo waa qardho?
aad baan u qosli lahaa laakiin hargabsanaya ma qosli karayo xasaradaa socota ayaan qayb laga noqon qardho waa sool soolna waa qardho shaxdu waa qardho waana sool horaha loo socdo indhuhu gadalaan eegin puntland maamulka la yidhaahdo garashada hagaysaan idiin sheegaya waa garashada ciidanka BS ee ugu awooda badan gaalkacyo iyo boosaaso iyo meel walba degan gaalkacyo yidhi ka mid maaha xorriyadan ugu daadanayna garashadaas wada waa garashadii 21 wiilka xilka inta laga qaaday diiday la yidhi waxa la wixii saanad aaka iyo mafac la jiidayo ilaahay baan ku dhaartay waxaan arkay saq dhexe baan arkay garow qori la jiidayo dhex marayo qori mafac la jiidayo oo la yidhi waxa laga keenay godad iyo gaalkacyo xagee lagu wadaa boosaaso oo boosaaso muxuutiintii baa qabsaday maya ina diyaana xaq looga qaadaya baa la yidhi wixii ka dhacay waad ogeydeen caqliga noocaasa baa hagaya puntland meesha la yidhaahdo konfalakti inagama dhexeeyo dhul iskuma haysano wiilka fiiriya xabaalo wadareeda laasana ku taalla fiiriya wiilashakooda jira yaan la idinka faa'iidaysan xasarad la doonayo in puntlandna lagu burburiyo SSCna lagu burburiyo shisheeyana loogu adeegayo intaa wayna ka caqli badnaataan haddaad puntland joogtaan iyo haddaad joogtaan SSC intaba laydiin danayn maayo qodobkaas igu dambeeya intaanan dhoorro u tegin saaxiibka dhoorha u tegi doonaaye waxaa dhegaystay madaxweyne ku-xigeenkii puntland oo hadlaya madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yidhi labadii sano oo u dambaysana way dayacantay waxbarashada laascaanood mashaariicna wuu sheegay ay hayaan madaxweyne ku-xigeen waxaan rabaa inaan weydiiyo Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu sheegay inuu wax la qabsanayo Somaliland saaxiib iyo daris la noqonayo xaqna ay u leeyihiin waxa ay doonanay sameeyaan taa maxaad kaga jawaabtay juxa wuxuu kugu keenay buur madow meesha la yiraahdo ishaag garowe adoo og buur madow jariimada uu geystay marka laga reebo in la isdilay oo uu reerkooda la saftay oo gaadiidka ugu badnaa uu iibiyay oo ceergaabo waxaad ogeyd uu kaga hadlay oo uu yiri min qorlugud ilaa ceergaabo xabaddaa soconaysa waxaasoo dhan dagaal bay laakiin jariimadii uu u geystay garaadkaaga iyo dhaqankaaga ninkii aad ogeyd baa waxaa lagugu keenay garowe maxaad kaga jawaabtay 2 sano ka hor imtixaamada iyo waxbarashada SSC yaa mas'uul ka ahaa xagaad ku ogeyd xamar baa loo heesayaa hargeysaa loo heesayaa saaxiibkaadina hargeysa u heesayaa maka warhaysataa xamar in loo heeso dowladda Soomaaliya weeye xasan anagu ma aanan dooran dani baa soo dooray goormay noqotay xamar in la isku caayo iyo xasan sheekh iyo xamse abaal bay nagu leeyihiin xasan iyo xamse aanan ilaawi doonin intaana noolnahay limaada god anagoo ku jirna oo xabad ahaana ku xaqiijinay inaanu iska saarna cadowga ayay qaybtii qalinka nagu caawiyeen waan uga mahadcelinaynaa mana ilaawi doono kuwa garashada iyo garaadka yar daciifka ah la iibsado wax magaratada ah juhalada ah iyagay u taallaa laakiin annaka xamsan iyo xamse waa isgarab taagaynaa mooyaane waa dooranaynaa waana soo celinaynaa shaki kuma jiro maxaa yeelay warkal hore haddaay ahayd markii Soomaalida madaxa la isugu garaacay oo uu jahal loo dhaqaajiyay la garan waayay dani oo uu sida libaaxa u soconayay oo shirka sabab la'aan ka baxay oo la lahaa war maxaad rabtaa oo maalinba uu luqad ku hadlayay inuu maanta qol boosaasa ah oo imaaraadada ku xidhnaado isagaa ka shaqeeyay waxaana lagu abaalmarinayaa wixii uu shaqaystay buu ninkaasi helayaa firdhiya iyo Soomaa firdhiya xisbiga xasan buu gelayaa xasan buu dooranayaa xamsu la dabaaldegayaa laascaanood buu keenayaa buu hoodluu geynayaa nin yac ka odhan karaa ma jiro wixii loo dhaartay baa waxay ahayd dowladda Soomaaliya inuu hoos tago oo la shaqeeyo ninka doonaya inuu firdhiya garowe tago
oo u xanaaqsan muxuu garowe ma waaye war makarafoonka in caydid baa firdhaya loo dhiibayaa inta laga qaadan caydid matasaa la doonaysaa ninka la dooranayo hadda la dooranayo ama xildhibaan ahaw ama madaxweyne ahaw inaad lagu sharaxo oo aad lagu doorto xaq baa u leedahay laakiin ogow meeshan mabaadida taalla oo lama taabtaanka ah waa inaad sida qur-aanka u ilaalisaa absolutely madaxweyne ku-xigeenku wuxuu sameeyey meel ka dhac inaba aan la aqbali karin mashaariicda aa sheegta taliix inaad u haysaan iyo lascaanood adar buuhood la geeya waxa u baahan gaalkacyo geeya gaalkacyo wax kaga qabta biyaha dadka danyarta ah ugu gurmada halkaasay baahidoodu taallaa naftu hadday ka baxayso taliix iyo lascaanood iyo buuhoodle xabad kaniinoo garow ka timaada uma baahna waa ixtiraamayaa xuseen gibiley nin waayeela wax badan og weeye waxa ii sheegtay gabadh aan aad u ixtiraamaa waxay ii sheegtay oo yurub degan waxay igu tiri weligii iyo allahay ma rumaysanay bay tiri xuseen gibiley baa dhulbahanta dibindaabiyeynaya laakiin caawa way muuqataa maxaanu uga baahannahay anagu mashaariic garowa ka timaadaa sidee baad u tiraahdaa caawa 2 sano dayacnayd wa 15 sano dayacnayd oo la daawanayay maxaa yaa lagu haleynayay midda labaad xuseenow adiga iyo daa'uud bisinle anigu garan maayo hadda cid kale meesha ku weelisee ilaahay baan idinku dhaarshay meesha ama iskaga taga ama ka jawaaba waxa hortiina ka dhacaya war qodobkan intaan ka odhanayaa waxaan u tagay ninkii oran jiray saaxiibkay Dhoore oo tareenkii maakhar oo isagu daroolka ka booday Dhoore hadda ka hor baa waxaan idhi warniyow inta aad ka sheegaysid Puntland ma awoodaa inaad ka sheegtid SNM hore waxaan idinku sheegay khatarta ugu badan oo Soomaaliya sanaag ay wajahayaan waxa weeye nimanka SNM ay soo canqariyeen oo ay sida loo hadlo soo bareen oo wax la soo cabay oo wax la soo cunay waxba ma xasuustaan oo waxba ma qoraan oo waxba ma akhriyaan oo wax ma record gareeyaan maxaa yeelay waa niman waxay gowracana ay xaaraan yihiin waxay sheegana ay been yihiin Dhoore wuxuu yiri Puntland baa lagu soo duulay shalay markuu Puntland kula dagaalamayay baran isagaan difaacayna waxaan lahayn Puntland ta waxaan ku lahayn war Puntlandnimada baran Dhoore kula dagaalamayso ceergalaha hal maxay isagii baa maanta wuxuu leeyahay Puntland baa duulaan lagu yahay bal xigmad darrada ninkaas iyo garashay la'aanta gobolkiisii sanaag baa wuxuu ku jiraa dispute oo la rabaa cid kastaba halala kaashade in laga saaro dispute siyaasiga Soomaaliga aadka u liitaa qada maalin laga reebay ama meel looga yeedhi waayay buu boqolkiiba 200 ku wareegayaa saacada dhinaca kale war waxaan dawladda ma aha dawladii Soomaaliya Muqdisho ay fadhidaa ilaahay ha inoo hagaajiyo ha inoo barakay waxana waa maamulo ninka gobolkiisii la haysto oo dispute area-da ay xeebihiisii ku jiraan oo degmadii uu u dhashay aan booqan karin oo maalina garka u booday maalina garka u boodaya oo wixii isagu uu soo aasaasay oo dadku ka barteen oo lagu taageeray hal meel habeen ka dhaqaaqaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un Dhoore waxaan rabaa inaan ku dhahdo qofka bini aadamka ah haduusan mabda lahayn waa waxa Soomaaliga siyaasigiisu u badan yahay mabda hadaanu lahayn aanay jirin wax ka xaaraana oo jirin wax xalaal ah oo aanu lahayn meel uu ka yimi oo aanay jirin meel uu u socdo sida Dhoore oo kaag wuxuu yiri waxaan dhaw kal hore war inta aad ka sheegaysid Puntland ma awoodana Soomaaliland ka sheegtay hadda waxa la sheegay inuu yahay Dani team wuxuu yiri baa lascaanood baa waxa laga duulayaa garowe cida ka duulaysana waa nimanka Ciise Maxamuud garowe iska lahaa niman Almaadeera Saciid Abdullaahi Dani iyo Cali Xoosh iyo ninka la yiraahdo Maxamuud Shido iyo Guuleed Saalax iyo kulli waa niman Almaadeera garowena kuma duulayaan weligood kuma ay duulin adigu iska waran oo gobolkaaga ka waran maxaa caaqiba ku ah ku socotaa
dhoorrow gobol baa ka timi hogaamiye maakhar baad ahayd shalay baa doorasho lagugu bedelay xaggee ku socotaa xaggee ka timi yaa subxaanaka yaa rab inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajicuun khiyaaray iga raalli ahaada waa hargabsanahay in badan baan raba inaan hadlo laakiin intaasaan odhanayaa ilaahay subxaana wa tacala waxaan ula weydiinayaa inuu waddankeenna islaaxiyo waxaan arkayay wejiye xun tii muqdisho 4 sano kasta oo la arkaba ma walaaca horleba ah ma mooryaan qaranba ah ma waddo la xidha ah ma aabbahay lama gudinba war xaggaynu aadna maxaynu samaynaa arrintaa markalaan ka hadli doonaa aad baan idin salaamayaa guuliyo gobonnimo assalaamu calaykum